نبدي معاني نعودوني kulan wacan dhegaystayaal si kastoo aad inoo maqlaysaan halkani waa radio Barawe mawjada 89.5 FM ayaad inaga maqlaysaan dhegaystayaasha inay jecel kusoo dhawaada barnaamijka madasha martida toddobaadkan barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa doorka haweenku ay ka qaadan karaan nabad dhiska dalka. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti iigu ah gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Barawe Abay Gaabane. sidoo kale waxaa marti ku ah Ibraahim Mahad iyo Aamina Cali Siidow oo ka mid ah bulshada deegaankan. kusoo dhawaada barnaamijka. waayahay gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Barawe ayaan ku bilaabayaa su'aasha ugu horeysa. waa maxay sababta ka qaybgalka loo dhan yahay ay muhiim ugu tahay dawlad dhiska iyo dib u heshiisiinta dadaalada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. aad ayaa u mahadsantahay Fuaad wiilkeena radio maamulaha radio Barawe. waa kaaga mahad celinaynaa sida su'aalaha qurux badan aad noo soo jeedisay. su'aasha markay tahay waxaa muhiim ugu tahay in wada noolaanshaha iyo wada jirka iyo dawladnimada ee qaas u tahay in la wada noolaado, in la wada jiro, inuu wax alaal wax yimaado loo cadaalad fala shay muhiim ah. waa arrinkaasna waxay tahay horumar dhanka bulshada, horumar ay ku tahay dhanka dawladnimada, horumar ay u tahay dhanka oo wada noolaanshahana horumar ay u tahay. waayahay marka su'aashaas dib aan kugu soo laaban doonaa. waxaan rabaa in markaan Aamina aan weydiiyo maxaa caqabada ah oo gaar ah oo haweenka dhalinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay ay kala kulmaan in ay gacan ka geystaan nabadda iyo horumarka meelaha colaadaha markaasi ay nusqaamiyeen. waa maxay caqabadaha ay kala kulmayaan marka ay rabaan inay gacan ka geystaan nabad dhiska arrimahaas taagan? aad u mahadsan tahay caqabadaha badi ay kala kulmaan oo hadee noqolee dhanka dagaalaha markii la saysto haweenka iyo dhalinyarada bulshada micnihii Soomaali dhaqan oo waxa u taagan haween inaysan nabad ka qayb qaadan karin. laakiin aniga waa ogahay door weyn ay ka leeyihiin haweenka iyo dhalinyaradaba dib u dhiska dalka wax walba ay noqoto, hadee noqoto siyaasad iyo hadee noqoto dhan kale oo waxaan leeyahay nabadeyn. haweenka waxaan leeyahay door weyn ay ka qaadan karaan, laakiin waxaa jira caqabado oo marmar waxa laga yaabaa odayaasha iyo dhankaas meelaha kale ma aragtay inuu ka imaado oo la dhahayo qofkan kuntulley waay, laakiin sida saxda aan saas ma ahan way ka qayb qaadan karaan. waayahay Aamina iyo gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Barawe waan aragnay fikradaha ay ka qabaan arrimahaasi. sidee wax uga qaban karnaa heerarka dhaqameed ama bulsho ee xadidaya ka qaybgalka haweenka iyo kooxaha laga tirada badan yahay? Masar Ibraahim. horta assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. waa mahadsan tahay su'aalkaas haddaan ka jawaabo qaabka ugu wanaagsan oo qayb qaadan karo in xeerarkan oo dhaqameed oo dhalinyarada haweenka iyo dadka laga tira badan yahay horta waxaa ku ah in bulshada oo isdhexgal bulshada la sameeyo. wacyigelinta bulshada muhiim ka tahay in oo wacyigelin badan la sameeyo si dhalinyarada iyo dadka laga tira badan yahay in sulkood fikradood iyo waxyaabo ay markaas oo soo jeedin lahay oo laga diiwaan gelin lahay in oo waxa kale sameyn karaa in uu yaraan meeshii dowladda oo xafiisyada dowladda iyo wax kasta inuu naftirkood dadka mitilaa laga helo si ayagana markaas oo meelaha sharciga ama la soo dejinayo ama waxyaabo markaas oo ayagana codkood qayb ka noqda. su'aalkaas aan leeyahay. Ibraahim ku soo laaban doonaa. waxaan rabaa gudoomiyaha ururka haweenka degmada Barawe inaan dib ugu laabto. haday su'aashan ku weydiiyay waxay ku saabsaneed sababta ka qaybgalka loo dhan yahay muhiim ay ugu tahay dawlad dhiska
iyo dadaalada dib u heshiisiinta. Inta badan fikirkaaga waxaa ka dhex muuqday in cadaaladda salka ay ku haysay. Marka waayahan dambe waxaa soo badanaya in haweenka laftirkoodii ay kaalin ka qaadanayeen hurinta dagaal beeleedyo soo noqnoqda, ayadoo haddana dhinac kale laga eegayo in la rabay door muhiima inay ka qaataan dib u dhiska, dib u heshiisiinta iyo nabadeynta. Marka soo laysma dhihi karo waxaa ku lug yeelateen waayihii dambe dagaalada qabyaaladaysan. bismillaah. waxaa waaye qofbuu si u dhe qofna si u qaati waa. waxaa waaye waxaa ku yar dadkaas ujeedad waayigelinta yar. hooy haddaan aan ahay dagaal ma horiyeen. waxaa meesha dhawaa haddii dagaal dhac wax ku baaba'ay waa haweenkii. ma unugaa qaadaa ma adaa orodaa naftaa waxaa dhibaato kursiga kuu dheer gaaja kuu dheer aruura aad jiidaysid. dagaalka waxaa saameyn ugu xun ku yeelanaya haddii dagaal dhaco waa haweenkii. u malayn maayo inaan haween hadda horboodayo dagaal oo hiisad u qabo. hadday jirtana waa meel oo waayigelintu ku yar tahay dadkii ay iska yihiin wixii markaas loo yeeriyo ay iska qaadanayaan. dadaa jira oo odayaal iyo kaaba qabiilyaala jiraan oo dagaal oogyaal ah ay ka beer jilaas ka raadsanayaan wadaan reer hebelaan ahay iyo reer hebelaan ahay kutruusa ahay iyo waxaasaa gabdho laga yaaba dad haddii oo waayigelintu ay ku yar tahay waxyaala ay arkayaan waayigelintii iyo isku imaatankii iyo in laga gudbo dadkan dagaalada laga hor istaago in laga waayigeliyo meesha looga baahnaa. haddii siminaaro loo qabto siminaar ku saabsan dagaala qaadayna nabadii keena wax keena haddii gabdhihii laba lagu badbadiyo hadda waa gabar keliya waxaa waye laga yaaba meelahaas qaar inay dhacto suurtagal lase uma badno. dadka waa soo jeedaan haweenkan waa soo jeedaan cid qax la geli karo ilaahay abuuro diyaar u yahay ma jiraan. waxaan leeyahay in waayigelid la badiya, in siminaaro la badiya, in loo caqliya dadka uqdud laga dhameeya dadka markii loo dhigaa maxay ahaato tiiraan bixiin oo kale tiiraan bixin loo sameeyo qofkas wuxuu soo mar dib ugu ciishooda uu ka suusho wuxuu u baxa caafimaad. marka waxaan qabaa in la qabto degmooyinka iyo tuulooyinka meesha la tegi karo tiiraan bixin laga sameeyo si dad isu afiyaan umad u noqdo dad isku wada noolaa karo. waxaan qabaa waayigelin in la badiyan qabaa waxyaalaas dhan waxaa hooyo aab u ah in laga waayigeliyo jahliga. barnaamijkan dhegaystayaal waxaa maalgelisay Somali Joint Fund waxaana hirgelinaysa hay-adda UNDP oo la kaashanaysa hay-adaha baweeda. waayahay waa mahadsan tahay gudoomiye aada u mahadsan tahay. aamina dhanka midig see xigta laakiin Ibrahim aan dib ugu laaban doonaa aaminana waan usoo laaban doonaa. marka Masar Ibrahim waxaan rabi lahaa inaan ku weydiiyo waa maxay doorka ay markaas hogaamiyaasha maxalliga ah culimada ama hay-adaha ka shaqeeya arrimaha dhaqanka oo kale ay ka ciyaari karaan dhiirigelinta ka mid noqoshada nabad dhisidda iyo dib u heshiisiinta. waa mahadsantahay Fuhado, waa su-aal wanaagsan waaye. culimadeen waxaa waaye xilligan sokeeyo dagaal kasta ahay waxyaabo badan ay soo qabadaan oo kow ka ahay wacyigelin badan oo bulshada u sameeyaan in diinta islaamka naftirka dhiiga oo diiday aan lidaadina lidiidayso iyo waxyaabo kale la xiriira in oo dagaalada meel ka dhacay in haweenka iyo ilmaha oo iishig oo ka nabad helaan haddii dagaalka waxaas dhacayaan. hogaamiyaasha oo nabadoonadeen iyo dadkii ganacsatada door muhiim ayay ka dheelaan oo si ay mushkiladaas oo dhashay oo laga soo kaban lahay. inta badan hadda ilaa kharasi culimadu wax badan qabada wacyigelinta meelaha masaajida ka socota bulshada naftirkooda waxaa waye magaca ku yeelan marka waa fududaanaysa inuu qof maanta oo mas-uule oo culimada maanta bulshada hor istaago oo wax dheho bulshada naftirkooda waa ku dhiiranaan dhaqsi hadaladood iyo fariinta ayaga markaas gudbinaya toos ah marka bulshada u gaaraysa. saasaan dhehe. okay waayahay aada u mahadsan tahay. marka aamina sidee haweenka dhalinyarada iyo kooxaha laga tirada badan yahay ay u yeelan karaan markan isbahaysi si ay codkooda ugu xoojiyaan dadaalada dowlad dhiska? kule maxaa la dhahay haweenkii dhalinyarada ururo waxay ugu qayb qaadan karaan nabadda
iyo dadka laga tira badan yahay in isdhexgal bulsho kow la helo kadib isdhexgal bulsho isbahaysiga markaas waa imaanaa in maxaa la dhahay bulshadii haddii hal meel xilli kasta ay ku kulmaan oo la is xog wareysanayo dhalinyaradii iyo habeenkii isdhexgal bulsho hadday suubiyaan meesha waxaan ka dhalan karto in dadkii hal go-aan ay yeeshaan xisbine ay noqdaan laakiin haddii oo maxaa la dhahay aan laisku imaanin oo danihi ama aayihii aan laga tashanin waxay qaban karaan ma lahan laakiin waxaa loo gudbi karaa isdhexgal bulsho ama wacyigelin badan in loo suubiyo naftigooda habeenkii iyo dhalinyarada say door fiican ugu qaadan lahaayeen. gudoomiye adiga bal isla su-aashaas aragtidaada sidee yacni isbahaysi ay ugu samaysan karaan bulshada sida haweenka dhalinyarada iyo kooxaha laga tirada badan yahay si ay codkooda ugu xoojiyaan dadaalada dowlad dhiska? bismillaah waa horta markii ugu horeysa inay fursad ay u helaan inay isku imaatin ay helaan markii ugu horeysa jaanis la siiya dadka markay jaanis la siiyo oo wada kulmaan oo shirkood joogta oo noqda waxaa fahan ka soo baxayo inay samaystaan xisbi magac in u yeeshaan magac walbahaan oo yiraahdaan saas unba wax ku heli karnaa saas ugu qayb qaadan karnaa dowladnimada iyo wax allaal waxa nabad xaggeeda loo dhaqaaqayo aan ka qaban karnaa waxay tahay inay iskaashi ay samaystaan inay dadka laga tirad badan yahay ay ka soo qayb galaan loo fidiyo inay dadka isku mid yihiin la ogeysiiyo inay wax mabtakoor ah aana jirin cid laga tirad badan yahay oo jira ilaahay xaggiisa lagu sameeyay waa laga tirad badan yahay meel aan ku leeyahay waxa waa dhaqan Soomaaliya la yiraahdaa waxa waa jirtaa sababta ay tahay ana laandheer ahay ana kaasaas ahay ana ka dil badan imaanaysa marka waxa dadka dilin lagu jeeda dadka baraha laga tiri badan yahay saa u fahmaye marka waxaan ila tahay aniga tan ka gudoomiye ahaan ayna dadka laga waayigeliyo qudud noocaas in laga saar marka horeyso marka qududaas ay ka suujo ay ku darsan karaan ay xisbin la noqon karaan dadka kale ay wax la qaybsan karaan waa in waayigelin loo badiyo waa in la tusaa inay wada simanahay soo xuquuq aan nahay in horumarkeen uu hal uu yahay wada nolosheen ay hal ay tahay in la helaa markaan isku imaatinkaasoo si ay loo waayigeliyo umadaas haddee ay guryaha ku jiraan uqdada la dhimanayaan haddii meelaha jidka marayaan dadka soo soo waa iska leexana jidka wadada kaaga leexana sababta ay tahay waa yaala dilana dad ma haysta amal wax difaacay malaha inta saas dheel aha in loo sameeyo loo yaro ama wax u dooda in dadku wax fahansiyo ma loo yaro ila dawle ma wax laga hadlayo daw idille ma waa loo waxay noqon kartaa in qof wax fahansiya ama macallin ha ahaado ama qof oo aftaan ha ahaado ama qof undergrad ha ahaado in la yiraahdo ani idinka ilaahay xaqiis wuu ka samanahay adduunka ku samanahay wax laan dheeri wax laan gaar yahay meesha ma jiraan wax tira badan yahay dadka la tira badan yahay leeyahay ayaga tira badan waxa ari loo qariyo waay marka waxaan rabnaa ayaga tira badan yeysa duur ku jirana waxaan rabaa in la soo bixiyo in tira badan yahay loo sheego in laga tira badneen xaq xuquuqna ay hal ay tahay waan mahadsantahay gudoomiye waad mahadsantahay Mr. Ibrahim adigu aragtidaada Aamina iyo gudoomiyaha waxay soo jeediyeen in dadka horta isku tashi la tuso oo iyagu wacyigelin la siiyo ay noqdaan dad isku duuban sidoo kale aragtida dheeriga ay ku darsatay gudoomiyaha waxa kamid ahayd in xitaa iyagu ay qareen isku noqdaan dadka adiga aragtida kale ku dar leed waa maxay waa mahadsantahay qodobkaas waa qodobka aad u muhiim ah sidii ugu wanaagsanaa maanta dadka haweenka iyo hogaamiyaasha laga tira badan yahay codkooda soo saari lahay waxaa kow ka ahay in ayaga naftarkooda oo mas-uuliyadii saaran oo dadka dowladda iyo dadka la hadlaan oo qaab badan oo dowladda la fahamsiin karo waxaa kamid ah in dababiixyaasha oo sameeya mudaharaad sameeya oo si ayagana xubin ka noqdaan dadka oo sharciga soo dejinayo cidi kasta oo dhageysan leh waa qaabka ugu wanaagsan oo maanta codkooda ku biirin karaan waa in ayaga ismuujiyaan oo meelaha goobaha oo isku soo bax sameeyaan ka bacdi waxaa waye codkooda markaas waxaa waye toosa dowladda iyo cidi kale oo sharci iyo shuruudaha soo dejina markaas codkooda waa gaari lahaa intaasaan ku dari lahay barnaamijkan dhegeystayaal waxaa maalgelisay Somali Joint Fund waxaana hirgelinaysa hay-adda UNDP oo la kaashanaysa hay-adaha baweeda
waayahay masar ibraahim gudoomiyaha ururka haweenka degmada baraawe iyo aamine cali sidoo aada u mahadsantihiin. guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka ayaa intaasi noogu idil tan iyo kulanti dambe. amaana allah.